waxaan nahay wahdiga dugsiyada. علم البشرة كسر السجلات وبقى قرية ستة يقنطن إلى بقى قرية أخرى يقنطن عشان كانوا واحد كسر سيء واحد وطانية أوركي وملاح أوركي لوريتشي أوركي وملاح إن السنية اللي بتلعب بكبار كده واحد شيء إن لا يسكت إن يلا يسووا الكلام ذلك سلوا الصنايع أور العالم يا أور هذا أور الكبار واحد شيء وضمني xilligaas dagaal ka dhamaaday inay ka fikireen inay meel isugu wada yimaadaan oo ay ka shiraan sidii ay u samayn lahaayeen urur caalami ah oo ay qaldadooda oo ka mid ah iyaga dantiisa ka dhex arki karo ama wixii uu had iyo jeer cabasho iyo hadal qabo uu dhex keeni karo ama uu laga maamuli karo ururkaas waxaa la aasaasay dagaalkii koowaad ee adduunka kadib ururkan la yidhaahdo ururka wadaha waxaa la aasaasay dagaalkii koowaad ee adduunka kadib oo markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka ee 1914 ilaa 1918 xilligii uu dhamaaday oo ahaa 1918 ayaa ururka la aasaasay ama la sameeyey ama la dhisay ujeedadiisu waxay ahayd in la dhowro nabadda iyo xasiloonida adduunka ujeedada ururka loo dhisay ama loo sameeyey ayaa waxay ahayd in la dhowro nabadda iyo xasiloonida adduunka oo uu dal waliba si nabad ah adduunka ugu noolaado dagaaladii hore iyo wixii hore ee jirayna la iska dhaafo ama la iska ilaawo oo la tirtiro fikradda lagu aasaasay ururka waxa ay ka timi Maraykanka iyo Ingiriiska dalka Maraykanka iyo dalka Ingiriiska ayaa fikradda ururka lagu aasaasay ka timi iyagoo ka hadlay intii uu dagaalku socday ka hadlay in ururka la sameeyo labada dal ayaa hore u soo jeediyey abuurista ururka ama samaynta ururka intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka ayay labada dal ka fikireen in la sameeyo ururka ama ururka la aasaaso si ay danaha wadamada adduunka oo dhami wixii ururka kusoo biira ay u maareeyaan arrimahooda looga maareeyo shirkii nabadda ee Paris ayaa oggolaaday dastuurka ururka shirkii nabadda ee lagu qaban jiray Paris 1918 ayaa oggolaaday dastuurka ururka loo dejiyay ama xeerarka ururka loo dejiyay kaas ayaa lagu oggolaaday dalka Switzerland ayaa loo aqoonsaday inuu xarun u noqdo ururka wada dalka Switzerland ayaa waxaa loo xukumay ama loo oggolaaday inuu noqdo xarunta ama fadhiisinka ururka qaramada midoobay sababta loogu oggolaaday waxay tahay wadamada kale looga dhigi waayay xaruntiisa ururka looga sameyn waayay sababta ayaa waxay ahayd ururka wadaha waxaana loogu doortay isagoo oo dalkan dhexdhexaad ka ahaa iska horimaadyadii adduunka ama dagaaladii ka dhacay adduunka wadankaas uu dhexdhexaad ka ahaa oo aan dal la safarin dal aan raacin aw isagu meel dhexe ka taagnaa arrinta iyada ayaa dalkan looga dhigay xarun oo dal waliba markaa ku kalsoonaa sababtoo ah dal wax ka tirsanaya ama dal dhibaato ka tirsanaya aanu jirin markii hore ururku waxa uu xadiday xubinka noqoshada ururka waxaa la xadiday ama waxaa la yareeyey xubinka noqoshada ururka ama sida ururka looga mid noqonayo ayaa la xadiday oo la yareeyey xubnihiisa si uu noqdo mid waxtar leh oo aan iska qaladanin ama aan khilaaf fara badan usoo kala dhex gelin laba ururka waxaa xubno ka ahaa dalalkii isbahaysiga ahaa intii uu dagaalku socday xubnihii ugu horreeyay ururka laga sameeyey waxay ahaayeen dalalkii isbahaysiga ahaa ee dad xilligii dagaalka socday ee xilligaas hayay ayay ahaayeen wadamada ka ahaa ururka xubnaha ka ahaa markii ugu horreysay wadamada isbahaysiga aynu soo sheegnay sida ruushka iyo hungary sida Australia hungary iyo Jarmalka ruushka iyo Maraykanka iyo wadamadii isbahaysiga ahaa ayaa xubnihii ugu horreeyay ka noqday qaar ka mid ah dalalka dhexdhexaadka ah ayaa xubinnimo loo oggolaaday ururku wuxuuna xooga saarayay qodobadan wadamadii dhexdhexaadka ahaa ee aan dagaalka oran markaa dhinaca ku haynin ayaa xubno loo oggolaaday ama inay ka mid noqdaan ururka loo oggolaaday si ay uga mid noqdaan ururka ay xubno u keensadaan ayaa loo oggolaaday qodobadiisana waxaa ka mid ahaa kow in lagu dhameeyo waan iyo wada hadal haddii uu isafgara waa soo kala dhex gala dalalka in lagu
dhameeyo waan iyo wada hadal haddii laba dal oo ka mid ah ururka uu soo kala dhex galo dagaal ama ay dhibaato soo dhex gasho in waan lagu dhameeyo iyo wada hadal oo aan xaaloo qaadin gar adeego ama aan si kale la isku sii deyn ama odhan iyagu ha soo heshiiyaan iyagoo ay wadamada dhexdhexaadka ahay marka labada dal kala dhex galaan qodobka labaad in la dhowro madax bannaanida dalalka kale in aan dalna lagu tumanin madax bannaanidiisa ee la ilaaliyo madax bannaanida dalalka kale aan ururka ka mid ahayn kuwa ururka mooyaane kuwa ururka ka mid ahayn xataa sidii madax bannaanidooda loo ilaalin lahaa ee aan dhibaato loogu geysan lahayn qodobka saddexaad in la sameeyo hubbilis in wadamadii dagaalka galay ee hubka faraha badan la haystay ay hubbilis sameeyaan si wadanku uu nabad u gaadho oo loo nasto ayaa waxaa la talada u talagalaya in la sameeyo hubbilis haddii hubshiro dagaal joogsan maayo laakiin haddii hubku yaraado oo hubka la dhigo oo dadku wadamada usoo jeestaan dhaqaale iyo waxyaabo kale ay ka hadlaan hubku dee uu soo yaraanaya ama dagaalkii colaadda way soo yaraanaysa inkastoo aanay dhicin dagaalkii labaadba dhacay qodobka afraad in la cunaqabateeyo dalalka gardarrada bilaabo in la cunaqabateeyo wadamada dagaalka marka nabadda la gaadho wadamada gardarrada bilaabo ee iyagu aan u hogaansanayn xeerarka in la cunaqabateyn lagu sameeyo oo wadamadu ay cunaqabateyn waxaa la yidhaha marka wadanka waxna laga iibin waayo waxna laga iibsan waayo ee la yidhahda isagu keligaha isku koobnaado waxna loo dhoofin waayo waxna laga dhoofsan waayo ayaa la yidhahdaa cunaqabateyn laamaha ururka waxaa ka mid ahaa ururka shaqaalaha adduunka laamo badan ayuu ururku yeeshay ama laamo badan oo casharada dambe ku jira ayuu ururku leeyahay waxaana ka mid ahaa oo ugu waaweyna laamaha ururka shaqaalaha adduunka inkastoo ururku lahaa ujeedooyin heer sare ah oo waxyaabo badan ka turjumaya inkastoo ururku yeeshay haddana waxba kama tarin dhowridda nabadda ujeedooyinkaa faraha badan ee la higsanayay ama la gaarayay waxba kamay tarin dhowriddii nabadda oo waa kii dagaalkii labaadba ka dhacay iyagoo weli sidii u muransan ama isu haysta mana awoodin inuu joojiyo xubnihiisa ku xadgudba xeerarka ururku muu awoodi karin ama muu awoodin ama muu awoodi waayey inuu joojiyo ama inuu qabto ama inuu hakiyo xubnihiisa ama wadamada ka midka ah ee ku xadgudbaya xeerarka ururka jebinaya maalinba wadan ayaa isku duulayay jiro xeerka ururka dhaafi jiray mana lahayn awood uu ku qasbi karo xubnihiisa inay fuliyaan daabka ururka mana uu karin ama muu awoodin inuu xubnihiisa ku hogaamiyo ama ku khasbo inay dalabka ururka wixii ururku marba doonaya ururku soo jeediyo in ay fuliyaan ururka ma uu gaarin heerkaas oo way fuli weyn qaar ka mid ah dalalka ay ka baraasiil ka mid tahay waxay iskaga baxeen waxay si fudud uga baxeen ururka wadamada baraasiil iyo wadamo kale oo ka mid yihiin waxay si fudud oo bilaa shuruuda uga baxeen ururka waayo maxaa yeelay waxa cambaareeyey xubnihii kale waa tii layidhi dalka gardarrada wadaha la cambaareeyo markay dhowr jeer farafarayn wadamada dariska laayo waxyaabahaas ama xubnihii ama xeerarka ururka fulintiisii ay ka dhagaadeegtay ee wadamadii kala cambaareen xeerkoodii hore ayay ku jirtay in la cambaareeyo wadankii wadamada gardarrada bilaabo ayaa dabeetana xeerkii loo cuskaday waana la cambaareeyey sidaa daraaddeed ayay markaa si fudud iyaduna ururka uga baxay wadanka ururku wuxuu baraarujin u sameeyey dhibaatooyinkiisii ururku wuxuu baraarujin u sameeyey ama dadka ogeysiiyey ama dadka tusay sidii dhibaatooyinkiisu ay ahaayeen ama sidii looga gudbi lahaa waxyaabaha dhibaatooyinka iyo inay dhib badan tahay inay hay-ad caalami ahayd maamusho dalal madax bannaan waxaa kaloo ina dhib ahayd ama uu ururku ogaaday ama adduunku isfahansiiyey in ay hay-ad kula oo caalami ahayd ay wadamada badan ee tirada badan ee adduunka ee mid walba mabda' gaara iyo ujeedo gaara leeyahay in ay hay-ad way maamusho taasna aanay suurtagal ahayn ayaa ururka ummaddu ku caddeeyey wadamada dagaalka iyo hadda jeer burburka ka sheekaynayay ama burburka waday oo aan iyagoo isku sanbanaanayn ayaa arrintaas soo banbixiyey inuu ururka awoodi waayo ama uu ururku kari waayo waxyaabo badan oo looga baahnaa maadaama aan ururku qaban karayn hawlaha intaa leegna ururka waxaa ka xumaaday waxyaabo fara badan oo ururku aakhirkii uu ku burburayba sida
انت عشان كده ما انت نقول هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي هل عشان كده ما انت waxaan nahay wahdiga dugsiyada